madaxweynaha maamul goboleedka galmudug maxamed axmed caalin ayaa waxaa magaalada london kulamo la qaatay odayaal waxgarad culamaa'udiin ka soo jeeda gobolkaasi mudug waxayna ka wada hadleen sidii nabad looga dhalin lahaa gobolkaasi waxayna ballan ku wada qaadeen inay gacmo isqabsan doonaan islamarkaasna ay ka wada shaqayn doonaan nabadda gobolkaasi mudug. gobolka mudug ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid ay ka jireen amni darro iyo dilal qorshaysan oo lala beegsanaya mas-uuliyiin iyo waxgarad kale, waxaana maalmihii ugu dambeeyey ka socda magaaladaasi gaalkacyo oo shirar isdaba joog ah oo wax looga qabanayay amni darradaasi. shirarkaas ayaa waxaa ka qayb qaadanayay nabadoono, odayaal dhaqameedyo, haween iyo bulshada qeybaheeda kala gedisan. madaxweynaha galmudug maxamed axmed caalin oo kulamo aada u muhiima la qaatay waxgarad, odayaal, aqoon-yahano ka soo jeeda galbeedka mudug ayaa ku ballan qaaday inay gacmaha isqabsan doonaan si wadajir ahna ay uga wada shaqayn doonaan xasilooni u helidda gobolka mudug iyo sidii nabad waarta loogu heli lahaa gobolkaasi. haddaba khudbadihii laga soo jeediyey kulankaasi ayaa waxay u dhacayaan sida tan. madaxweynaha galmudug, dowladda galmudug, wasiirada ka socda wafdigiisa ka tirsan galmudug, dowladda galmudug, guddoomiyaha isbahaysiga iyo dib u xoreynta soomaaliya injineer zakariya, odayaasha waxgaradka, oqaasha halka kan joogta, aad baan idiin salaamayaa. xafladda tan waxaa soo abaabulay beesha galbeed mudug amase leelkase, cid walba siday u taqaano. kaalinta uu madaxweyne maxamed axmed caalin uu kaga jiro nabadaynta, cadaaladda, horumarinta, isfahamka dadyoowa ku nool mudug iyo qiirada wadaninimo oo ku jirta in dib u soo celinta midnimadii iyo qarannimadii soomaaliya. waxaan go-aansanay inaan guddoonsiino hawshaas weyn oo uu qabtay shahaado sharaf lagu magacaabay kii nabadda dhalinayay iyo shakhsiyadda sanadka 2011. magaca beesha waa maamulka keliya oo soomaaliya oo hal beel aan ku ekayn oo beelo kala duwan oo dhan isugu yimid u yahay. anaga dan noogu jirtaa, qof walbay dan ugu jirtaa, caqli leh, muslim ah, waxa wanaagsan inuu qaato, qofna ugu hiilimayno dulmi, wax ka dhaxeeya xisaabtan hoosoo laba ka dhaxeeyana ugu kala hiilimayno, laakiin waxa layskugu hiilinayaa waxay tahay cadaaladda weyn. midda labaad waxa weeye ilaahaba na faraya meel haddii dagaal ka dhaco in wax kasta nabad laga raadiyo. galmudugna aan leenahay soomaali oo dhan ay soo dhaweynaysaa meel kasta ay joogto, wixii aan dulmi iyo dhibaato wadinin laysu magacaabin oo hadda waxbaa un la leeyahay. waxa weeye galbeedka hadda mudug waa ku mahadsantihiin dhaweynta iyo qadarinta iyo maamuuska, laakiin ma ahayn aniga wax gaara oo nabad gaar oo aan raadiye. waxaan u haystaa waajib rabbaaniya oo ilaahay faray, oo soomaalinimada i farayso, islaamnimada i faray. marka qof walbana ha qaato, cid lagu xumaynayo iyo cid lagu soo dhawaynayo midna inaanay jirine wixii nala qaata wanaaggaa soomaalinimana waxa weeye waa iskaashanaynaa, waa wadaynaa oo lilaahiya. wixii aan rabinna waa ka tegaynaa, saa baska ka dhici doona marka dambe. waxaan ilaahay hortiis iyo ummadda soomaaliyeed horteeda markhaati ka ahay caawa in galbeed mudug iyo galmudug ku heshiisay nabadda in la xoojiyo, laga wada shaqeeyo, inaan intaa keliya looga harin oo mudug keliya looga harin ee gobol walba la gaarsiiyo, isla markaasna qarannimadii soomaaliyeed iyo midnimadii soomaaliyeed la soo celiyo, la wada baadigoobo. arrintaas baan ku bogaadinahayaa ayagoo ka gudbay beelihii iyo beelnimadii iyo cadownimadii iyo dagaaladii 20 sano ummadda soomaaliya ku socday. gundhig inaad u noqotaan calankii soomaaliyeed iyo qarannimadii soomaaliyeed iyo nabadii soomaaliyeed inaad soo celisaan baan ilaahay ka rajaynayaa.
annaguna waynu ku taageeraynaa shacbiga Soomaaliyeedna waynu ku taageerahayaa ilaahay subxaanahu qaadirna ayuu ku taageero in muxuu ahaa duulaan nabadeed la qaado dadkii Soomaaliyeed la isku raadiyo in muxuu ahaa nabadda midibada loo aaso in Soomaaliyu isku tashatay cid midayso soo celisay midnimadeedii aysan dibadda ka soo waxa saasan isugu nimid